eylada waa qabiil ka mid a qabaa'ilada dega dalka Soomaaliya oo la heb sooco ma lahan bar iyo beer ama deegaan. waa dad guurguura oo ugaarto ah noloshooduna ku tiirsan tahay dabinta xayawaanada duur. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ah ugaaska guud ee boqortooyada qowmiyadda Eylo isla markaana ku hadlaya magaca qowmiyadda ayaan waxaan rabaa inaan jawaab ka bixiyo akhbaar goordhaweed laga sii daayay TV-ga qaranka. waxaa wax laga xumaadaa in qowmiyadda Eylo ay degta 9 gobol isla markaana leh deegaano kala duwan ee u qaas ah in lagu aflagaadeeyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed iyadoo aflagaadadaasi ay soo geliyaan kuwa lid ku ah horumarka boqortooyada qowmiyadda Eylo. sidaas darteed waxaan dacwad ka dhan ah u gudbinayaa wariyaashii iyo ciddii ku fallahayd aflagaadadaasi laga sii daayay TV-ga qaranka, gaar ahaan madaxda sare ee dowladda, khaasatan wasiirka warfaafinta oo ugu horeeyo. wasiirka waxaan ka codsanaynaa in jawaab degdeg ah asaga iyo wasaaraddiisa warfaafinta ay ka bixiso hadalkan aan u qalmin qowmiyaddan magaca iyo maamuuska iyo mugga weyn ku leh dalka Soomaaliya, isla markaana ah dadkii markaa loogu yimid waddanka lagu aflagaadeeyo ayadoo markaasi loo adeegsanayo TV-ga qaranka. maaha wax la aqbali karo ama wax aan yeeli doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo. waxaan ka codsanaynaa dowladda ama ka wardhooraynaa inay jawaab degdeg ah ay ka bixiso arrinkaas. waa ummad jirta 9 gobol degan dhul u gaar ah ay leedahay, aqoon-yahano ay leedahay, culimada diin ay leedahay, ahna dadkii markaa waddankan loogu yimid sharafna ku leh in maanta hadalla aanan u qalmin ama laga dhigo dad markaa wadamo kale ka yimid meesha iska marayo kala lala dhaqmo hadal noocaas lagu yiraahdo TV-ga qarankan ay ka baxdo. waa wax nasiib daro ah oo aad iyo aad aan nooga xunnahay. waa waxaan yeeli karnana maaha. dowladda ayaan kaga fadhinaa jawaab degdeg ah inay arrintaasi ka bixiso. waxaan indhihiina ay qabata waa video dad caailaha taqriiban ka kooban ilaa 4 qofood oo qof dumar ay tahay iyo 3 qof in markaasi dhibaato waa iska dhici kartaa in qofka qowmiyadda ha u dhasho ama aysan ummadda Soomaaliyeed dhan baa dhibaataysan meel walba ay joogto gargaar iyo dhibaatana u baahan. laakiin in qowmiyaddan xaqeedii markaasi aan siisan u qalmin lagu aflagaadeeyo TV-ga qaranka laguna sheego dadaan dhul lahayn iska socotaa maaha wax markaasi loo dulqaadan karo. dowladdana waxaan ka rabnaa si markaa mas-uuliyad leh oo markaasi u qalanta dowladnimo inay arrintaasi kaga jawaabto. waxaan ugu baaqayaa dhammaan qowmiyaddana in ay markaasi isdejiyaan, ay ka wardhooraan dowladda qaranka oo markaasi laga sii daayay TV-geeda hadalkaas aanan u qalmin jawaabta ay ka bixin doonto. insha Allah waan mahadsantihiin. waa walaalkiin ugaaska guud ee boqortooyada qowmiyadda Eylo, ugaas Idriis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن عبد الرحمن راضي تلفزيون كقرنك مقالة حضر.